all right. waxaan marka hadda sameynaynaa fashalka ugu horeeya ee applicationkeena waana read all saadin sheegay read all marka shalay samee xalay casharka horeeya sameynay okay so wax cusub nooguma ah laakiin bis function ka dhigaynaa bis class inta kale waa sideed wixii shalay soo aragnaa waa marka hal mar ku celinaa marka waxaan doonaa function oops I lost the cursor function oops what the hell is that waxaan doonaa function magaciisa sheegana tusaale waxaan inaan read all aan ka badno dhammaan ardayda noo soo akhri kadib waa fureynaa qoysa fureynaa waa xiriirnaa marka meesha waxaan laga rabaa object connection ah sababtoo gudaha waxaa ku isticmaali doonaa connection marka connectionka inta ku imaana marka functionka uu ciis connection u soo baasaysa macna connection qasab ah okay functionki read waa noo diyaarsan yahay waa qornay maxaa marka dhexdiisa ku jiro waxaa ku dhex jiri doona query oo la aadi doono database-ka laga soo akhri doono dhammaan information ka database ku jiro sidee waxaan dhigana marka variable query sida shalay aan sameynayna kadib waxaan dhigi doonaa select star from student good dhammaan ardayda noo soo akhri okay dhammaan ardayda markaa noo soo akhriso kadib maxaan sameynaynaa kan waxaan dhahnay select waxa waaye read all students in the database good kadib waxaan laga rabaa querygan in la fuliyo execute the query see loo fulinaa marka waxaan sameyn doonaa variable dhahayo resultgan marka waxaa uu noo hayn doonaa database-ku aadi doonaa querygan noo fuli doonaa see loo fulinaa marka connectionka lagu soo baasay oo kan ah objectigan waxaa fulinaysaa query wuxuu leeyahay marka query la fulinaya keeba marka queryga noo diyaarsanaa oo kor noogu qornaa fuli resultgan marka laba arrin uu hayaa wuxuu hayaa ima success ama error uu hayaa waxaan leenahay markuu success ka hayo if haddii result uu success yahay macnaha if haddii true tahay waa macnaha oo wax cilad jirin database cilad ka jirin oo queryga si nadiif loo fuliyo waxaan sameynaynaa marka soo hore u sheegnay oo habeen casharka horeeyay aan kasoo sheekeynay resultiga soo laabanaya waa badan yahay maxaa la rabaa marka in la kala furfuro oo la soo gudbiyaa la rabaa ayagoo array ah see loo soo gudbinaa marka waxaan isticmaalaynaa loop isticmaalaynaa okay loopka isticmaalnay habeen hore wuxuu ahaa casharka horeeyay while okay while variable waxaan dhiibanaynaa oo loo kala sameynaynaa equal leena while loopkan ha socdo variablekan qiimihii marka inta laga soo helo lagu waxa leeyahay marka resultiga soo laabtay ilan daatooda Soomaa fetch associate kan muxuu yahay shalay wax soo hadlay waxa waaye maadaama list fara badan aawado fetch ka soo sameey macnaha row uu soo bixi rowga soo bixisanaya u dhiibay rowgana loo dhiibi doonaa rowgan marka wuxuu hayaa markasta oo loop ka dhamaado rowgan wuxuu hayaa information markaas la marooyo waxaa ka qaadanayna marka rowgan marka waa temporary markii ay tahay 20 result soo database ka tagi doonaa si aan su'aal cad u aragno waxaan soo kici doonaa php my admin localhost/php my admin enter nice so why do that okay my db marka galo su'aal ahaan aan soo aqriyo student-igan select star marka ku sameeyo why did that we don't have any data so insert ku sameey data ingili doona salahan di doona id-gan as inuu soo wada la rabay laakiin for now iska isticmaali doona class-kiisa 1 for 1 qofka labaad haji class-kiisa 1 for 2 so go there okay browse laba qof haysta for now labadan qof markii select star labadan lagu soo aqrinaa deel 100 kala soo aqrinaa row marka wuxuu sameeynaa result fetch associate marka la waxa waaye rowgan uu soo qabanaa rowgan marka soo qabto asaa loo dhiibaa maadaama meeshan equal aa dhahoono waxa dhigi doonaa rowgan ayuu lagu shubi doonaa equal sa hore soo sheegna waxa override waa macnaha wixii hore ku jiray waa la tiraa wax cusub lagu shubaa rowgi labaad la gaari macna qofkana la gaari rowgi maxal sameeyna kii hore waa la tiraa ileen equal la dhahoya macna equal waxa waaye wuxuu hadda la mid yahay qiimo cusub lagu shubaya
kii hore waa baxay marka kii u dambeeyo mar walba haynaa marka mar walba waxaan rabaa inaad ka faa'iideysto wax uu haay inaad ka reebto wixii kalena uu isoo qaadaro marka si arrinkaas ay u dhacdo waxaan samaysanaa another variable oo global ah oo la dhahayo tusaale ahaan data oo kale asigana waxaan ka dhiganaa array waa associative-kii aan xalay kasoo hadlaynay ayaan rabaa inaan ku isticmaalo datada marka global variable meel kore ii taalaa meel walba ka access garay karaa waxaan leeyahay marka intaadan luminin rowgan koowaad ilan mar walba waa la override garaynaa wax cusub waa lagu shubaa intaadan kii hore daadinin waxaa samaysaa data appendi ku sameey appendi calaamadan la isticmaalaa equal aa leedahay calaamadan waxay u dhigantaa wixii hore ugu jira ku dar waa macnaha maxaa lagu daraa marka row wixii ku jira ka qaado maxaa la sameynaa marka warkaa wuxuu u dhigmaa rowgan koowaad markii la maraayo ninkan row koowaada loo dhiibo mogtaa inta imaanaya daatada waxaa ku shubtaa row markaas aawada meesha marka la imaado waxaa loo dhiibi doonaa ninkan kii hore wuu iloobi doonaa waxaa loo dhiibi doonaa rowga cusub rowga saddexaad rowga afar saasoo ku socon doonaa marka ninkan mar walba wuxuu hayaa rowga markaas la marooyo si marka arrinkaas ugu qaadan waxaa sameyn doonaa daatadan noogu wada qaada leenahay daatadaas arrayda kadibna rowgaas wuxuu haayo kan ku shub kan marka waxaa soo bixi doono informationka database ka imaadayo dhan ayaa lagu wareeji doonaa marka daatadan nice markuu loop ka dhamaado markuu dhamaado kan marka if result yaa weli lagu dhex jiraa macnaha resultigi true markuu yaawaa haddii marka resultigi uusan true ahayn else oo soo laabanaa gudaha kan kale else aa dhihi doonaa waxaa soo daabici doonaa marka connectionkii ayaa waxaan ku shubi doonaa macnaha waxaan soo celi doonaa ciladaa jirto ayaan soo celi doonaa cilad ayaa jirta ayaan soo celi doonaa waxaa sameynaa marka variable kale oo la dhahayo tusaale ahaan data oo kale ama soo celinayo messagekii ama waxyaalo noocaas variable kale waxaa sameysanayaa abaadaatadan iska ahaata xataa wax dhib ma lahan waxaa sameynayaa okay nice waaye variable kale xataa iska sameysto oo informationka isoo daawacayo message something like that equal asigan array waaye ilan maadaama associative array aa sameynayo markuu loop ka dhamaado waxaa dhihi doonaa what is this variable magaciisa ilaa message aan soo qaadan doonaa waxaa dhihi doonaa variable kan messageka ah wuxuu la mid yahay aan leenahay markuu loop ka dhamaado array waaye associative-ka shalay aan kasoo hadlaynay kow waxa waaye statuska datada marka equal waxaa dhahaynaa calaamadan waaye waa true sababta maxaa waaye ilan if resultigi true waa ku dhex jiraa macnaha waxaa dhihi doonaa statuska soo laaban doono waa true ilan daatadan waxaa rabaa markaa soo celinaa inaa status soo raacay statusku waxaa waaye waxaa ku aqoonsanaa daatadan hadda aa soo diri rabo noocee waaye ma daato oo error soo celin rabaa ma daato success soo celin rabaa marka maadaama if result oo true aan ku dhex jiro waxaa dhihi doonaa messagekeyga wuxuu noqon doonaa statuskiis waa true daatadan maxay noqon doontaa marka daatada variable data la dhahayo aan baasi doonaa waxaan leeyahay daatadan wuxuu lamid yahayo variablekan daatada ii hayo hal mar aan ku celiyay messagekan wuxuu noo hay doonaa associative arrayga sababta loo isticmaalaya shalay aan ka hadlana waxaa waaye magacyaa sameysan karaa macnaha laakiin arrayda caadiga 01 aa isticmaalaa waxaa leeyahay marka statuskiis waa true maadaama if result aa ku jiro true ay tahay daatadana daato waaye else haddii kale oo cilad ay jirto waxaan sameyn doonaa isla messagekii variableka waxaa dhihi doonaa tookadan array statuska muxuu noqonaa markaan ilan else error aa ku dhex jiraayo waxaan leeyahay statuska markaan waa false okay daatada marka noocee waa markaan daatada waxa waaye aan leeyahay markaan waxaan rabaa cilada saxda jirta inaan sheego database-ku wixii kasoo laabto waxaa dhihi doonaa connectionka lagu soo baasay cilada uu wado soo celi ilan table qaldan something qaldan waxyaalahaas qaldan okay markii marka messagekan wuxuu noo hayaa hadda laba arin imaa wuxuu hayaa true oo daatuu soo laabatay ama wuxuu hayaa daatada ma soo laabanay error hayaa wixii marka inaan arkaa rabaa maxaan isticmaalayay echo saa ogtihiin echo array looma isticmaali karo ilan arrayda printi r aa la isticmaalaya haddaa echo isticmaasho waxaa dhacayso in cilada ku qabsato waxaan sameynayna marka echo markaa dhahno daatadan waa bareejinaynaa waxaan u tarjumaynaa json aa u tarjumaynaa sidan oo kale inay kusoo baxdaa la rabaa ilan haddaa isaa idiin sheegay daatadan oon diyaarinayna nooca inay naqataa la rabaa okay so see u sameynayna marka waxaan leenahay json encode aa isticmaalana json encode waxaa waaye arrayda wuxuu u bedelaa string oo json u bedelaa kadib waxaa lagaa rabaa wax la bedelayaa lagaa rabaa arrayda la bedelaya inaad sheegto waxaa la bedeli doonaa
messagekaasaa la bedeli doonaa. hadda marka qaab json ay usoo bixi doontaa marka. okay, so see ku tijaabinayna marka waxaan see ku shaqeynayaan read allkan see ku shaqeynayaan. okay, so next waxaan fiirinaynaa marka sida loo fuli lahaa querygan ayaan fiirinaynaa. for now meeshaas ku joojinaynaa insha allah. bye for now.